bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saaka idin haya waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Khayro awoodiisa u adeegsanaya in beeshiisa kaga taageero loolanka dhana beesha Abgaal koox hubaysan oo la magac baxday Macawusle oo weerar lagu dilay hogaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab ka fulisay gobolka Hiiraan isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo looga dhawaaqay magaalada Muqdisho maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo musuqmaasuq ku sii deysanin loo haystay kiis kufsi ah iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo Kismaayo kaga dhawaaqay go'aan ka dhan dawladda Farmaajo wararka dibadda wararka TV saaka idin hayeen waxaa ka mid ah darawal Shiineys ah oo lagu ganaaxay arrin cajiib ah daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena ku cusub barta YouTube-ka fadlan subscribe leh barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya arrimaha Soomaaliya iyo caalamka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa awoodiisa u adeegsanaya in beeshiisa uu kaga taageero loolan ay kula jirta beesha Abgaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa awoodiisa iyo kursiga uu ku fadhiyo u adeegsanaya inuu faragelin ku sameeyo maamulka deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho oo ay isku hayaan beeshiisa iyo beesha Abgaal sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen shabakada wararka TV ra'iisul wasaare Khayre ayaa 3 goor isor istaagay gudoomiye ku-xigeen deegaanka Garas Valley oo u magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir sababta ayaa ah in qofka la magacaabayo uu ka soo jeedo beesha Abgaal sida ila lagu kalsoon yahay ay warbaahintu wax xaqiijiyeen arrinta magacaabista gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee deegaanka Garas Valley ayaa lagu hadla gashay xaalad qabiil oo xoogan iyo nin jeclaysi waana deegaan ay isku haystaan beesha Muursade iyo beesha Abgaal odayaasha iyo maamulka degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa deegaanka Garas Valley u yaqaan wax ka tirsan degmada Daynile halka odayaasha Abgaal gaar ahaan beelaha Wacaysle Wacbuudan ay ololo ugu jiraan inay Garas Valley noqoto degmo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir oo madax bannaan sanadihii u dambeeyay ayaa beesha Abgaal gaar ahaan beelaha Wacbuudan iyo Wacaysle ay Garas Valley geliyeen lacag xad dhaaf ah kana sameeyeen dhismayaal iyo xarun degmo saldhig booliis isbitaal ceelal iyo adeegyo kale kana dhigay deegaan ka hormarsan degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood gudoomiyaha Garas Valley ayaa waxa uu ka yimid beesha Abgaal gaar ahaan Daa'uud oo ka tirsan Wacbuudan halka ku-xigeenka koobaad oo ah amniga iyo siyaasadda laga keenay beesha Abgaal gaar ahaan Wacaysle oo aad deegaanka ugu xoogan balse sanadkan waxaa doodgeliyay beesha Muursade oo kursiga ku dhagan ku dhawaad hal sano waana sababta keentay in booskaas bannaanaado muddo ka badan 6 bilood arrintan ayaa lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin xildhibaano la taliyaal ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha gudoomiyihii xilka laga qaaday ee maaliyadda gobolka Banaadir iyo saraakiil kale dhinaca kale waxaa ka socda gudoomiye Yariisow odayaal iyo siyaasiyiin kale oo deegaanka matala koox hubaysan oo la yiraahdo Macawusle ayaa weerar ay ku dishay hogaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab ka fuliyay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan dagaal u dhaxeeya dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo koox la magac baxday Macawusle ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa ka dhacay tuulada Aboorey oo ku dhow degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan waxaana kooxda hubaysan ay la wareegtay goob Al-Shabaab ay macaawino ka bixinaysay sida dadka deegaanka ay sheegeen odayaasha deegaanka ayaa shabakada wararka TV u sheegay in maleeshiyada la magac baxday Macawusle ay weerar ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo raashin qaybin ku jiray waxaana weerarku uu ku bilowday bambaanooyin iyo miinooyin kadibna waxaa xigay weerar gaadmo ah oo kooxdaasi ay ka fuliyeen deegaankaasi dadka Al-Shabaab dagaalka uga dhintay ayaa waxaa ku jiray Sheekh Cali Garweyne oo ah madaxii Al-Shabaab ee inta u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo Buulaburde horena u ahaa madaxii howlgallada ee Al-Shabaab ee degmada Buulaburde sida ay xaqiijiyeen dad yaqaan sarkaalka la dilay waxaana sarkaalkaasi lala dilay tirar maleeshiyaad ah oo ilaalo u ahaa markii weerarkaasi lagu qaadayay ma jiraan wax war oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxda weerarka fulisay laakiin maalmihii u dambeeyay waxaa sii kordhayay weerar gaadmo oo koox la magac baxay Macawusle deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay ku fulinayeen isbahaysi siyaasadeed oo cusub ayaa looga dhawaaqay magaalada Muqdisho kulan ay Muqdisho ku yeesheen xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa kaga dhawaaqeen isbahaysi siyaasadeed oo ay sheegeen inuu qayb ka noqon doono xisbiyada ka qaybgalaya doorashooyinka la filayo in 2020 dabiiqadeeda ay ka dhacaan wadanka Soomaaliya 3 xisbi siyaasadeed oo ka mid ah xisbiyadii uu diiwaan geliyay guddiga doorashooyinka qaranka
ayaa ku dhawaaqay inay midoobeen sidoo kalena ay la midoobi doonaan xisbiyada siyaasadeed ee kale ee dalka ka jira. xisbiyada maanta midoobay ayaa waxaa kala hogaaminaya xildhibaan Sakariya Xaaji Maxamuud, xildhibaan Fardowso Yuusuf Xaaji Aadan iyo siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan. xildhibaan Sakariya ayaa sheegay in ujeedada ay u sameysteen isbahaysigan loogu magac daray iskaashi ay tahay in la yareeyo xisbiyada tirada badan ee dalka ka jira isla markaana la helo tiro kooban oo xisbiyo ah. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa lacag ku dhow 20,000 ku bedelatay siideynta nin u xirnaa kiis kufsi. heer kalsooni la'aanta garsoorka Soomaaliya ay weli aad u hooseyso ayaa waxaa qoysas badan oo Soomaaliyeed ay cabasho ka qabaan qaabka loo dhigo dacwada badaniga ah ee loo geeyo hay'adaha garsoorka Soomaaliya. kalsooni darrada garsoorka iyo awood yaraanta ku aadan fulinta go'aanada ay gaaraan waxay sababtay in dad badan oo xal ka waayay garsoorka dawladda ay u dacwo tagaan maxkamadaha Al-Shabaab oo midii ugu dhow ay ku taalo gobolka Shabeellada Hoose. dadka dhibka ugu badan qaba waxaa ka mid ah qoysaska danta yar oo aan haysan lacag arrimahooda ay ku xalistaan, waxaana dhacda in dad badan loo awood sheegto ayadoo la adeegsanayo shaati dawladeed iyo mid qabiil, halka qaar kale kiisaskooda dacwadaha lagu furo lacaga la siiyo garsoorka Soomaaliya. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa dhawaan lagu eedeeyay in $10,000 ay ku bedelatay kiis kufsi ah oo ay go'aan ka gaartay maxkamadda gobolka Banaadir. falkan oo dhacay bartamihii sanadkii hore ayaa loo geystay gabar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool gobolka Banaadir oo da'deeda lagu sheegay 14 ilaa 15 sano. gabadhan oo habeen luntay ayaa waxaa kaxeeyay oo gurigiisa geeyay wiil darawal ka ahaa mid ka mid ah gaadiidka BLK ee magaalada Muqdisho. waxa uuna qiraal ku qirtay in uu ugu galmooday si xoog ah, waxaana lagu xukumay 6 sano oo xarig ah iyo $5,000 oo magdhow ah sida ay go'aamisay maxkamadda gobolka Banaadir. racfaan ay qaateen qoyska wiilka wax kufsaday ayaa lagu sii daayay iyadoo la sheegay inaysan jirin wax dambi ah uu galay iyo cadeymo loo waayay, iyadoo qoyska dhibka loo geystay ay haystaan warqadda cadaynta CID-da iyo midda isbitaalka Madiina iyo sidoo kale warqad qoraal ah oo uu kufsiga ku qirtay ninka geystay ka hor cadaynta maxkamadda gobolka Banaadir. waalidiinta gabadha la kufsaday ayaa shabakada wararka TV u sheegay kiiska markii la geeyay maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir qoyska laga dalbaday in arrintan ay ka haraan, waxaana loo keenay lacag dhan $400 taas oo ay diideen. qoyska ayaa maalmo kadib lagu wargeliyay go'aanka maxkamadda racfaanka oo ah in dambi lagu waayay ninkii xukunka kufsiga ah ee uu qirtay cadeymo loo helay lagu riday, waxa ayna ku noqotay uur ku taalo xanuun badan. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo kaga dhawaaqay go'aan ka dhan ah dawladda dhexe ee Soomaaliya. qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kaga dhawaaqay inay ka hortagayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka maamulka Jubbaland, iyadoo xildhibaanadu ay sheegeen in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay doonayso in Jubbaland ay ka dhigto dawladda dhexe ee Soomaaliya sida maamulka Koonfur Galbeed oo hogaamiye iyadu ay maamusho ay u dhibto talada Jubbaland. senatarada kale ah Iftiin Xasan Baasto, Axmed Xaashi iyo senatar Fartaag ayaa sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ay ka been sheegayaan amniga deegaanada maamulka Jubbaland. senatarada ayaa waxa ay sheegeen in haddii dawladda dhexe ay isku daydo inay farageliso doorashooyinka Jubbaland inay ka hortagi doonaan isla markaana maamulka Jubbaland ay ka dhici doonto doorasho xalaal ah oo ay ku qanacsan yihiin musharaxiinta ka qaybgalaya. senatarada kale ah Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto ayaa sheegay in la socdaan qorshayaal ay wado dawladda dhexe ee Soomaaliya oo xiisad amni darro looga abuurayo deegaanada maamulka Jubbaland, isla markaana ay qaadan doonaan doorkooda si looga hortago arrintaasi maadaama ay la socdaan dhibaatada dawladda Soomaaliya ay ka geysatay magaalada Baydhabo. wararka dibadda wararka TV saaka idin hayna waxaa ka mid ah darawal Shiinays ah ayaa lagu ganaaxay arrin cajiib ah. nin darawal ah oo ka shaqaynaya bariga Shiinaha ayaa la ganaaxay kadib markii kaamirooyinka taraafikada sawireen isagoo wajiga xoganaya sida ay ku warameen warbaahinta dalkaasi. sida uu sheegay wargeyska Julie Event Post, ninkan oo lagu magacaabo Liu ayaa isniintii gaari ku waday magaalada Jiina ee bariga gobolka Shandunga, waxa uuna gacanta la galay wajigiisa xilli uu marayay jid ay kaamirooyinka taraafikada ku xiran yihiin. waxyar kadib waxaa soo dhacay fariin lagu sheegayo in uu jabiyay shuruucda wadooyinka oo uu gaari waday isagoo taleefan haysta.
fariinta ayaa waxaa la socotay sawirka kaamirooyinka ay qaadeen. sidoo kale waxaa la sheegay in 2 dhibcood laga jari doono laysankiisa isla markaana laga doonayo in uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan $725. Lu ayaa wixii ku dhacay la wadaagay dadka adeegsada barta bulshada ee Shiinaha ku wada xiriirto ee Weibo, wuxuuna dadka la wadaagay fariinta loo soo diray iyo waliba sawirka laga qaaday, isagoo intaa ku daray in mas'uuliyiinta uu si kafool ah ugu sharixi doono wixii dhacay maadaama taleefanka ay isku fahmi waayeen. Wargeyska Global Times ayaa markii dambe shaaciyay in mas'uuliyiinta taraafikada ay ka laabteen dacwadda loo haystay Lu, iyagoo sheegay in waji xogistiisa loo maleynayay inuu taleefan ku hadlay. guud ahaan daawadayaal wararkii oo aad saaka kala socoteen wararka TV waa naga inta.